الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. haddii ila yiraahdo halkan waxaan ku duubaynaa barnaamij taxana ahaan doona oo ay dad badan ka qayb geli doonaan oo aan ugu magac darnay talo waaya arag. barnaamijkan waxaa gudbinaysaa xarunta wacyigelinta iyo cilmi baarista ama aqoon baarista ee ogaal ee fadhigeedu yahay magaalada Nairobi dalka Kenya. waxaan ugu talagalnay wacyi ahaan inaynu bulshadeena la wadaagno meelahaan isleenahay sidii loo baahnaa wacyigu uma gaarsiisnaa. qodobka aan doonaya inaan ka hadlo waxa uu yahay xuquuqda shaqaalaha. waxaa igu kalifay markii aan arkay dad badan oo shaqaalaha oo u badan dhalinyaro oo runtii xuquuqdoodii ay maqan tahay cidudoodiisana aysan jirin. waxay isugu jiraan dhalinyaradaas shaqaalaha ah kuwa ka shaqeeya makhaayadaha ay Soomaalidu leedahay, kuwa ka shaqeeya dukaamada, bakhaarada, meheradaha ganacsiga oo dhan. in badan oo kamid ah xuquuqdoodii way maqan tahay. arrintaas ayaa igu kaliftay marka inaan wax ka iraahdo. haddii horta waxaa mudan inaynu ogaano in la isu shaqeeyo waa wax caadiya, wax dhiba male dadku inay isu shaqeeyaan. sababtoo ah adduunku ma wada noqon karo dadku inay wada taajir noqdaan oo xoolo wada yeeshaan kadibna la waayo cid u shaqeysa. noloshaaba adkaan lahayd. sidaasoo kalena waxaa tilmaamaya qur-aanka kariimka ayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamaya in addoommada iyo aadanaha la isu sakhiray si ay isugu shaqeeyaan, sababtoo si ay nolosha u kala fududaato. haddii tusaale ahaan makhaayadda aad leedahay la waayo cid kaaga shaqeysa oo ama cunnada karisa ama dadka u gibiyeysa ama soo adeegta ama qorta kharashka dadka wax cunay, way adkaan lahayd lacagtaa waxba kuma aadan samayseen. marka dadkan inta badan qof kasta waxa uu meesha ku joogaa oo ku shaqaysanaya xirfadiisa. ma jirto kala sarreyn oo qofka wax haysta macnaheedu maaha inuu ka karti iyo waxtar badan yahay qofkan waxba haysan ama qofka u shaqaynaya. taa macnaheedu ma aha. waxa weeye nolosha ayaa sidaas Ilaahay isugu sakhiray dadka. marka haddii ay saas tahay ma mudna qofka in xuquuqdiisa lagu tunto meelna looga dhaco sharaftiisa. waxyaabaha dhaca waxaa ka mid ah qofku haddii xitaa uu dalbado shaqaalaha ah in uu xaqiisa helo ama loo kordhiyo mushaarka ama waqtiga faraha badan leh aan u qalmin waxa uu qaadanayo uu shaqada gelinayo laga kala yareeyo, waxaa dhacaysa inta badan inaan arrintaa tixgelin la siinin isagana laga ceyriyay shaqada, mid kale u baahan oo miskiinana la keensado. marka qofkan hantida leh xoolaha leh isagu waxa uu sida ugu dhaqmayaa cidna waayimaayo u shaqeysa cidaasoo duruufaysan. marka duruufta ayuu dadka kaga faa'iideysanayaa, ama haddii ay doonto qofkaasi dumar ha ahaato loo shaqeynayo duruufta ay dadka uga faa'iideysanaysaa. sidaasina si habboon ma aha. sidoo kale dadka laftigooda la macaamilaya dadkaas wax ka gadanaya, ama haddii makhaayad tahay wax ka cunaya, ama haddii dukaan iyo bakhaar yihiin dad wax ka gadanaya, laftigooda qayb ayay ka qaadanayaan sida ii muuqatay dulmiga ama xadgudubka dadka shaqaalaha lagula dhaqmayo. waxaa wanaagsan inay ogaadaan dadkan inay yihiin shaqaale, iyagoo aysan talada ka go'in. way u dhiibi karaan fariin, way u sheegi karaan haddii wax khaldan yihiin in la gaarsiiyo. laakiin sax ma aha
in ay iyaguna ay xadgudubkii qayb kasii qaataan oo ay dadkii ku tuntaan xuquuqdooda iyaguna sax maaha. marmarka qaarkood waxaa dhacda inay qofkii ay u shaqaynayeen dadkan ay ku diraan oo yidhaahdaan sidii aan rabnayn uguma uusan shaqaynin, taasina ay keentaba in halkaas qofkaa shaqadii looga ceyriyo. sidaas sax maaha. maxaa ka dhalan kara marka arrintaas haddii sidaas xaaladdu ku socoto? waxaa ka dhalan karaa dhowr waxyaabood. waxaa ka mid ah qofkan shaqaalaha ah dhiiggiisa iyo dhacaankiisa iyo waktigiisa iyo dadaalkiisa xoolaha lagu kasbayo isaguna ku leh mushaar aada u yar. waxaa dhacaysa inuu cadaawad u qaado qofkii shaqaala ee uu shaqaynayay. taasina ma wanaagsana. dadka wada shaqaynaya oo shaqada isu keentay waxaa wanaagsan inay ahaadaan dad saaxiiba ah oo maaragtay isku wanaagsan oo isku qalbi furan, isla markaasna iska warqaba oo qofkan waxa uu tirsanayo iyo dareenka uu qabo uu la wadaagi karo qofka kale ee walaalkiisa ee uu shaqaynayay ee ay shaqada isu keentay aysan meesha oolin wax kale iyo adoonnimo iyo aysan oolin. cadaawadaasi meesha waxay keeni kartaa oo ka dhalan kara qofkan shaqaalaha haddii biri isaga uu fursad helo oo uu helo dad u shaqeeya inuu isaguna maro wadadii isaga lasoo mariyey oo ahayd inuu ku tunto xuquuqda dadka ka hooseeya ama dadka u shaqaynaya. sababtoo ah isaga ayaa wadadaas soo maray. tusaale ahaan kirishbooyada kuwa gawaarida la socda, darawalada iyo iyagu ma ay iskuma fiicna, dhaqan fiican kama dhexeeya. inta badan kirishbooyiga waa aad baa loo dhibaa. marka isagu uu darawal noqdana kirishbooyigiisa ayuu sidaasoo kale u dhibaa. waxaa la mida dhaqankii Soomaalidu ay lahayd oo ilaa haatan ay leedahay oo xoola dhaqatanimada gaar ahaan geel jiraha kuwa ugu yaryar ee ugu tabarta yar ayay rartaan oo adeegsadaan oo wax kasta u diraan. inkastoo ay keenaysa duruufta ah in qofkan lagu tarbiyeynayo ama lagu barbaarinayo nolosha ka horeysa ee ah nolol adag ee u baahan karti iyo adkaysi iyo u baahan ayaa loo diyaarinayaa. laakiin marmarka qaarkood way isku diraan, mid kaloo yar bay ku diraan, ayaga laftigooda laga yaaba inay garaacaan. marka geeltirinimadu iyaduna kaas marka uu xoogaa yaro koro kan ka dambeeya ee yar ee geeltiraha soo gala ayuu isna ka jaraa intii horey loogu sameeyey. marka waxay noqonaysaa wax isdaba yaallo oo aan harin, hadhowna dhib u keeni karta guud ahaan ummadda iyo qaranka intaba. waxyaabaha ka dhalan kara waxaa ka mid ah in qofkan shaqaalaha ah ee tirsanaya in lagu xadgudbay xuquuqdiisii, hantida uu kasbayana maaragtay qofkan uu ka faa'iidayo isagana uusan wax wanaagsan ku lahayn. waxaa dhici karta cadaawadda uu qaaday darteed inuu sameeyo inuu xoolaha ku xadgudbo, uu dhowri waayo amaanada. marmarka qaarkood waxaa dhacda inuu wax kala goosto. laakiin waxaan isleeyahay haddii xiriirka iyaga ka dhexeeya uu wanaagsanaan lahaa, qofkaasi uu heli lahaa xaqa uu leeyahay, uu fasax heli lahaa, marmarka qaarkood abaalmarin uu heli lahaa, shaqada uu jeclaan lahaa, cadaawadda intaa la egna halkaas kama aysan beeranteen. si marka boggaas loo rogo oo aynu bog cusub u furno waxaynu u baahannahay inaynu samayno dhowr arrimood. waxaa ka mid ah qofkan shaqaalaha laftigiisa in uusan cadaawad u qaadin qofka u shaqaynayo, sababtuna ay tahay inuu ku xasdo xoolaha ilaahay qofkaas siiyey. xoolaha ilaahay qofkaas siiyey waa fadli ilaahay uu siiyey iyo dheeraad ilaahay siiyey. adiguna ilaahay waa ku siin karaa adiga shaqaalaha ah. haddii aad dadaashidna waad heli kartaa. marka ma aha in aad ku xasadid ama aad maaragtay kaga xumaatid muxuu waxa u haystaa. taas sax ma aha. waxyaabaha keena ayay ka mid tahay
ayada laftigeedu qofkan loo shaqeeyaha ama hantida haysta meheradiisa laga shaqeynayo marka uu arko in xoogaa aan wax loo ogolayn inuu isagana kusii tunto waxyaabaha keena ka mid tahay. marka taas inaynu ka digtoonaano waa ay wanaagsan tahay. waxa wanaagsan sidoo kale qofka loo shaqeeyaha hantida leh in uu dadka u shaqeynaya ka warqabo, dadka isaga u shaqeynaya inuu ka warqabo oo dhibaatadooda maaragtay uu warka hayo, waxna ka qabto, cabashadooda wax ka qabto, inuu abaalmarin siiyo haddii ay shaqada si wanaagsan uga soo baxaan, inuu u mahad celiyo, in fasax la siiyo qofka. dadka qaarkood 7 maalmoodba way shaqeeyaan marka shaqadii uu nacayaa, laakiin haddii ay jiri lahayd xilli fasaxa waxaa laga yaabi lahaa in isaga firfircoon xilliga soo laabashada uu maaragtay shaqadii kusoo laabto, jeclaysto maalinta fasaxaana uu ka faa'iidaysto, dana kale oo lahaa uu qabsan kari lahaa. waxaa iyadana sidoo kale habboon dadka kale aan labada ahayn, loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha midna aan ahayn, laakiin iyagu ka adeeganaya meeshaas, haddii ay tahay makhaayad, haddii ay tahay meherad kale, iyagoo laftigooda inay ogaadaan dadkan shaqaalaha inay yihiin dad aan hantida lahayn inta badan weeye, inay isaga u ogaadaan. sidaa daraaddeed sida ay ula dhaqmi lahaayeen qofka hantida leh in aysan ula dhaqmin, inkastoo dhaqan wanaagsan qof kasta laga doonaya in lagula dhaqmo, haddana qofkan waa qof miskiin oo asagu laftigiisa dulmi tirsanaya. marka haddii adigii ka adeeganaya aada ugu sii tirsantidna hadee waxay noqonaysaa meeshii inay cadaawad un kasii beeranto. tusaale ahaan dhalinyarada makhaayadaha ka shaqeysa, dhibaatooyinka ay la kulmaan waxaa ka mid ah waqti badan bay shaqeeyaan, kuma filna waxa ay qaataan. dhalinyarada shaqeysa inta badan waqti ku filan, waqti badan bay shaqeeyaan, ba ka wada waqti badan bay shaqeeyaan, waxa ay qaataan kuma filla, cadaadis baa dusha ka saaran. mid kale oo laga yaaba asagoo laftiisu inuu shaqaale kale yahay laakiin isaga ka sarreeya ayaa laga yaabaa laftigiisu inuu kusii taagsado oo maaragtay cadaadis halkaa ka haysto. waxaa dhacda marka qofkan makhaayadda yimaada ee raba in wax laga iibiyo, kan yaray u adeegaya ayuu isna kusii tumanaya. tusaale ahaan haddii uu soo iloobo adeegii kasoo kala iloobo ama uu u keeni waayo wixii uu rabay, hadda qofkan isagu waxa gacanta kuma sameynin inuu adeego keeno un bay ahayd hawshiisa, waxaa dhacaysa markaa inuu ku tunto laftigiisu, caaya baa dhici karta, inuu la dagaalamaa dhici karta. waxaasi looma baahna. waxaa wanaagsan inaad ogaatid qofkan culays badan baa saaran, adigu marka haddii aadan wax tarayn ha ugu darin culayska, oo adigu laftigaaga culays kale ha kusii noqonin. waxaa wanaagsanaan lahayd in loo mahad celiyo marka qofka kuu adeego uu maaragtay si ay u noqoto wax farxad geliya oo dhiiri geliya inay u noqoto, inaad u mahad celisid oo tirahdid aad baad u mahadsantahay. waxaan kaloo ku talin lahaa, tusaale ahaan waxaa laga yaabaa inuu kaa soo haro xoogaa inay kaa soo harto lacaga oo adiga aan wax weyn hadda haba yaraatee aan kugu siyaadinayn, laakiin isaga wax weyn u tari karaysa. marka waxaa wanaagsanaan lahayd dhaqan wanaagsan oo waxaa jira oo wadamada reer galbeedka qaarkood ay ku dhaqmaan, oo qofka shaqaalaha in xoogaa yar oo maaragtay shaqadiisa loogu dhiirigelinayo in la siiyo. marka adigana wax weyn kaa dhibi mayso, isagana boos ayay uga soo baxaysaa, shaqadan uu ku jeclaanayaa. meesha waxaa ka abuurmaya marka jawi aada u wanaagsan oo in dadku ay isu naxariistaan, in dadku ay isu turaan, in dadka ay si wanaagsan uga dhaqmaan ayaa halkaa ka dhalanaysa. laakiin dhaqankan hadda aan ka sheekeynayay cadaawada ku dhisan, waxaa ka dhalanaya isnicid, cadaawad, isnicid, waxaan inay sii socdaan. qofku laftigiisa marka dambe haddii xitaa uu hawl caama loo dhiibo ama hawl dadka ka dhexaysa guud oo ama dawladda xil kamida loo dhiibo, laftigiisa qofka saa loola soo dhaqmay waxaa dhici karaysa amaba dhacdaba in uu isaguna wixii ku tagrifalo waxyaabaha keeni karay ka mid tahay
oo uusan wixii dhowrin maadaama uu ku soo barbaaray ama uu soo arkay cadaadis iyo dhibaato inuu maadaama uu soo arkay. marka si waxaas looga waantoobo aynu isbarno dhaqanka wanaagsan, wada noolaanshaha, isu turidda, is ixtiraamka. intaas ayaan qoran lahaa. aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin dhegeysigiina, daawashadiina. barnaamijyadan ogaal way sii socon doonaan haddii la yiraahdo tala waaya arag. aad baad mahadsantihiin mar labaad. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.